كسوري أو في قرمبة مدوي أو في قرمبة مدوي أيوة وصلت وعلامي سي متبعي يعني من اللي بيصير كأنه بيحكي عن هذا لامي سي وجود بيه كم دهايا لامي سحكم ده حكم ده كله وجود حكم ده كله فعنا حكم ده عبادات حكم ده هاي كله الرجال وحكم ده كوجود بيه الله تعالى يبشر الله تعالى يبشر تعالى وقابسان الله وقابسان حاجة تعالى والله أنا بحاول ليه تطبيق ولا تنشر الناس ولا صوت ولا شيء ولا ليه تطبيق ولا تنشر الناس أو صوت ولا طب ولا بقولي لورين سنة كستا وحى وكم نقطة وحى شغالة كفرستا هل الوضع يسطح وسجال تطبيق ولا تنشر سطح الوضع يوم حين قرية وسطح هل الوضع تطبيق ولا تنشر هل الوضع يسطح حوالي تطبيق ولا تنشر وتضبيط الوطن والقيمية صدق حصل حي سلام سلام الكسر سلام الموت أي شغلة كنا نستعملها ونقبلها قلوبه وحلي وحبيا قلوبه شغله وطروحة هاي وحاول حبيا مشاريع تطفي بدعة في مال كبر ورشة اليوم عرفناها كلاكي بالشارع عرف مشاريعها وحي لا حاجة ورشة حاجة عافماتك اليوم وكلا أدمها بالشدة إلى نقالها حاجة نقالها وكعوية والمضى حاجة واحدة شرع كعوية حاجة عافماتك وحاجة حاجة نقالها وقتين لما حملنا كمان كعيب يكون كسر قريبة إن قرمنا البدوي لا ترى عافماتك وعلى يا عيان أماري تروي يو قلبي كوف دقيقة يا مكحنة والمضى وقيمة سنة وكذا لا تبني أمر marka shaqooyinkooda ayaa ah inay ka warhayaan bulshooyinka adduunka ee ka mid ah waddan ama ha ka mid noqdaanbe bulshooyinka adduunka dhibaatooyinka haysta hadda waxa ay yihiin inay ka warhayaan hadday dhinaca waxbarashada tahay hadday dhinaca caafimaadka tahay hadday dhinaca dhaqaalaha tahay iyo hadday dhinaca kale bulshooyinka tahay bulshada tahay golaha dhaqaalaha iyo bulshadu waxa uu xidhiidhiyaa ama wuxuu isku xidhaa golaha dhaqaalaha iyo bulshadu wuxuu isku xidhaa ama xidhiidhiyaa howlaha guddiyada iyo hay-adaha gaar ahaaneed howlaha gudku qabanayso ama xubnaha ururka ka mid yahay qabanayaan iyo hay-adaha gaarka ah ee ururka u samaystay inay ka shaqeeyaan golaha dhexdiisa ayuu isku xidhaa hay-adaha aadka loo yaqaano waxaa ka mid ah ama hay-adaha aadka u shaqeeya ee ay dadku had iyo jeer maqlaan ama had iyo jeer bulshada dhexdeeda kule firfircoonida faraha badan waxaa ka mid ah ururka shaqaalaha adduunka way maqlaan maanta waa maalintii shaqaalaha adduunka maanta waa maalintii caynka shaqaalaha adduunka waxaas qabanaya ama shaqaalaha adduunka dee waxay qabtaan oo dhan ayaa waxaa ka mid ah ururkaas oo loo soo gaabiyo ilo waxaa kaloo ka mid ah ururka caafimaadka adduunka ama laanta caafimaadka adduunka oo loo soo gaabiyo group laantaasna waxay qaabilsan tahay inay ka shaqeyso wax alla wixii la taxalluqa ama la xidhiidha xagga caafimaadka ee markaa la soo gudboonaado ururka ama ururka wax ka qabashadiisa u baahan yahay sida maanta jirto oo kale ee dhinaca coronaviruska ay aad ugu dagaalamayaan ama aad uga shaqeynayaan ururka caafimaadka adduunka ee huwa ay aad u shaqeynayso waddan walba ka warhayso wixii dhintay wixii buka iyo wixii ay u baahan yihiin qalab iyo daawooyin waxaa kaloo ka mid ah qalabka nambarka saddexaad oo ah hay-adda caruurta iyo beeraha hay-adda cuntada iyo beeraha oo loo yaqaano FAO hay-adda cuntada iyo beeraha oo iyaduna ka caawisa dadka xagga beeraha iyo siirarka iyo daawooyinka beeraha iyo waxyaabahaas ama cuntooyinka markay abaara iyo waxyaabahaas jiraan dadka caawiya kana caawiya xagga cuntooyinka iyo qabyada beeraha daawooyinka beeraha siirka beeraha waxyaabahaas oo dhan ka caawiya marka loo baahdo ama markay dhibaato timaado xagga cuntada loo baahdo kan geysta gacan waxaa ka mid ah ururka qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ururka u qaabilsan ee loo soo gaabiyo maxay UNESCO had iyo jeer waxaan marnaa buugka soo daawacay ay ku qaban yihiin UNESCO waxay bixiyaan dhaqaalaha lagu soo daawacaya buugtaas waxay bixiyaan xagga sayniska teknolojiyada waxyaabaha laga gaarayo ayay dhaqaalaha ka bixiyaan ama wax ka bixiyaan dhinaca dhaqaalaha ayay gacan ka geystaan ama marba dhinacii waxbarashada iyo waxyaabaha dhaqaalaha looga baahan yahay ayay gacan ka geystaan xagga waxbarashada ayay dhaqaalaha badan ka geystaan ama silmiska ha noqdaan ama xagga macallimiinta ee waxbarashada ha
waxa kale oo kamid ah qodobka shanaad oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta oo loo yaqaan UNICEF waxay u qaabilsan tahay carruurta had iyo jeer waxay noqonayaan leeyahay ardayda dhammaan waxay siinayaan cuntooyin nafaqooyin ah waxyaabaha dawooyin waxyaabo oo keenayo cuntooyin ah oo had iyo jeer waxay la xiriiraan iyaguna xagga carruurta iyo baahiyahooda oo marka waddanka dhinaca carruurta ama dhibaataha kaga timaada ama caawimo kale looga baahdee dhinaca carruurta ayay iyaguna qaabilsan yihiin waxaa kaloo kamid ah hay'adda lixaad oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo shaqada waxay caawisaa dhinaca shaqaalaha ayay ka caawisaa dhinaca shaqooyinka ayay ka caawisaa oo waxaa la jeer waxay u sameeyaan wadamada qaarkood shaqaaluhu ay u sameeyaan marka waxyaabahaas oo dhan ayay ka caawiyaan iyaguna dadka ama bulshooyinka adduunka 7 waxaa kamid ah sanduuqa lacagta ee qaramada midoobay sanduuqa lacagta IMF oo isaguna u qaabilsan lacagta had iyo jeer haddii deymo cid la siinayo iyo haddii cid looga soo saarayo lacag dhaqaale loogu qabanayo wax lagu iibinayo iyo waxyaabahaas qaramada midoobay marka waxay u baahan iyo dhaqana fahantooda ururka naftarkiisa lacagihiisa lagu kala socodsiinayo iyagana waxaa qaabilsan hay'addaas ama sanduuqa lacagta oo isagana loo daba fadhiisto xagga dhaqaalaha iyo lacagta waxaa kaloo kamid ah lambarka 8 oo ah barnaamijyada horumarinta ee qaramada midoobay barnaamijyada horumarinta qaramada midoobay ee loo yaqaan UNDP waxay noqon hay'adda UNDP baa halkii sameysay sababta wax ka qabanaysa halkan hay'ad baa timo wax ka baaraysay waxyaabaha dadbay lacag siinayeen dadbay mashaariic fuliyeen iyaguna waxay barnaamijyada horumarinta ayay qaabilsan yihiin waxaa kaloo kamid ah hay'adda 9 oo ah hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR oo iyadoo loo qaabilsan dhinaca qaxootiyada markay dadku barakacaan ee wadamada qaxooti ka dhaco ama abaara soo qaxiyaan ama dagaala soo qaxiyaan waxyaabaha intoodka waxaa kamid ah dadka hay'adaha ay aad wadamada ay la xiriiraan wadamada Suuriya iyo Yemen wadamada ay dhibaatooyinku had iyo jeer ka jiraan ee hay'addaasina wax ka qabata oo dhinaca qaxootiga ayay qaabilsan tahay hay'adahan waxaa aasaasay qaramada midoobay si ay wax ugu qabtaan meelo gaara oo looga baahan yahay iskaashiga caalamiga hay'adan ama hay'adaha faraha badan ilaa 9 ah waxaa aasaasay ama aasaaskooda la qaramada midoobay si ay wax ugu qabtaan ama ay wax uga geystaan meelaha looga baahan yahay iskaashiga caalamiga ama meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ama meelaha baahiyo ka jiraan ama meelaha had iyo jeer ku dhacaan duruufaha ama faraha badan ama dhibaatooyinka ay la xiriira sida kuwa dabiiciga oo kale markay daawada iyo waxyaabo dhacaan hay'adahaas inay caawimo ka geystaan ama meelaha ay dagaalada ku jiraan oo kale laga geystay gacan waxay u sameeyeen hay'adda qaramada midoobay ayaa u sameysay hay'adahaas oo dhan inay shaqooyinkaas ka qabtaan meelaha looga baahan yahay ama daruuriga ka yihiin qaar kamid ah halkan waxaa lagu yaalla qaar kamid ah dhibaatooyinka qaramada midoobay waxyaabaha dhibaatada ku ah ama waxyaabaha ku hor yimaada ururka qaramada midoobay dhibaatooyinkooda waxaa kamid ah kow qaar kamid ah dalalka xubnaha ah oo aan bixinin saamigii deeqeed ee lagu leeyahay ama aan ku bixinin waqtigii la filayay waxaa weeyaan hay'adda qaramada midoobay oo lacag ka samaysato dhaqaalaha ay u haysato laakiin wadamada qaramada midoobay oo xubnaha ka ah ayaa lacagta bixiya oo deeq bixiyayaalka ah oo waddan waliba sida ay wadamadu kala dhaqaalo badan yihiin lacagta bixiya marka waxaa jirta in mararka qaarkood wadamada xubnaha ahi aanay bixinin saamigii looga baahnaa ama wixii looga baahnaa aanay wada bixinin ama aanay ku bixinin waqtigii la filayay looga baahnay wax lagu qabto taasina waxay noqotay inay dib u dhac keento oo ay shaqadii u badnaa ee lagu qaban lahaa howlaha lacagtaas lagu qaban lahaa kharashaadka lagu qaban lahaa ay dhammaystirmi waayaan iyadoo ay lacagta aad ka maqan yihiin ama waqtigeeda kasoo baahan darteed qodobka labaad dhaqaalaha ay bixiyaan dalalka xubnaha ah qaarkood oo aad u yar wadamada qaarkood oo dhaqaalahooda ay bixiyaan u yaryahay oo aan nahay mid kabaya hay'adda ama meelihii looga baahnaa marka dhibaatooyin dhacaan oo kale aanay isbixinaynin dhaqaalihii ay dadku bixiyeen iyo kii loo baahnaa aanay isbixinayn ama aanay isku dhawaanin taasina waxay noqotay dhibaato iyaga haysata xaggeeda qodobka saddexaad qaramada midoobay oo aan lahayn ciidan iyaga u gaar ah waxay ku tiirsan yihiin dalalka xubnaha ka ah in ay ugu deeqaan ciidamo shaqeeya inta ay dhibaata jirto qaramada midoobay oo aan lahayn ciidamo iyaga leeyihiin u gaar ee ku tiirsan dalalka xubnaha oo ay ciidan ka soo qaataan ciidankaas oo ay lacag aad u fara badan ku bixiyaan
tusaale marka ciidanka amisom ee jooga Soomaaliya oo kale waxa weeye qaramada midoobay baa lacag siisa wadamo badan ay ka koobayeen Ugandis oo ka koobayeen Kenya oo ka koobayeen Ethiopia oo ka koobayeen Djibouti waxa weeye ilaa iyo Ugandis baa ku jira waxyaabahaas oo dhan ayaa ka buuxa marka waxa weeye ciidamadaas oo dhan waxa lacagtooda bixinaysa qaramada midoobay hadday iyagu ciidan leedahay lacagta intaa leeyahay kagamay baxdeen wadamada kale marka ay ugu dirayaan ama marka ay nabad ilaalinta sameynayaan ama ay nabad kala dhex dhigayaan waddan ay ciidamo dhex dhigayaan marka sidaas daraadeed mar walba waxay ciidamada uga baahdaan wadamada xubnaha ka ah kuwaas oo ah kharash badan kaga baxo qodobka ku xiga waxa weeye quwadaha waaweyn oo isticmaala awoodda veto ama waxay qaataan go'aan iyagoo aan la tashan dalalka xubnaha ah ee wadamadii waaweynaa ee veto-ga lahaa oo mararka qaarkood iyagu go'aan iska gaara awoodda veto-gana isticmaalo waxyaabaha hawlaha qaramada midoobay soo fudisay ku gacansayda oo aan la tashanin wadamadii yaryaraa oo dhinaca ka dhaafa sidaa daraadeed taasina waxay noqotaa dhibaatooyin mararka qaarkood soo hortaaga ururka qaramada midoobay oo ay wax ka qabadkooda ku adkaato ama ay waqti badan ku qaadato waxaa kaloo ka mid ah mararka qaarkood wadamadu ma fuliyaan qaraarada la isku raaco mararka qaarkood waxaa dhacda inaanay wadamadu qaraarada la isku raaco ama go'aanada la soo jeediyo ama waxyaabaha la isla ogyahay aan wada qaadanin qaar wada qaataan sida iyaga uga muuqato ama ay wax ka bedelaan ama aanay raacinba mararka qaarkood taasina ay ku noqoto dhibaato in ururka ahmiyadiisii ama go'aanadiisii ay wada fuli waayaan oo ay noqdaan kuwo kala dhiman sidaa daraadeedna ay dhibaato isaga xaggiisa ah ka mid tahay halkaan maanta waxay noogu joogaan casharkeennii ahaa dhibaatooyinka qaramada midoobay iyo golaha dhaqaalaha iyo bulshada intaas ayuu maanta noogu joogayaa arday marka waxaa laydinka baahan yahay arday inaad casharkan ama casharadii ka horreeyaba aad isku soo xidhaan ama casharada isku afuraan oo aadan fasal isaga qaadanin sidii ay daafi lahaydaan casharada niyadda iyo qalbiga ku haysan inay imtixaanaad iyo waqtigeeda sugayaan casharadiina ay gabagabay sii yihiin sidaa daraadeed markaa waxaan kula taqaamaya ama kula talinaya inaad casharada akridaan feedbackooda ama laylisyadooda aad soo celisaan si aad loo ogaado wixii aad ka barateen iyo inta akhridan inta ay leedihiin halkaas ayuu casharkii noogu joogaa waxaa ka qaadaysaan xogga buugeeda 162 ilaa 163 ayaad ka daysaan intaa ayaad ka baaraysaan ama ka akhriysaan buugeena cilmiga bulshada. Wassalaamu calaykum.